السلام عليكم. فيديوغان waxaan doonayaa inaan ku sharaxo qaabka loo soo geliyo product cusub ama qaabka loo fiiriyo product inventory-ga ugu jira ama product uu yahay. Simply waxaad tagaysaa hadda product cusub soo gelinaysa, waxaad tagaysaa products, waxaad kasii tagaysaa meeshaan ku qoran tahay add product oo ah product cusub soo geli. kadib waxaad ku soo baxaysaa khaanadii la gelinayo product-ga. product magaciisa ku qoraysaa. tusaale ahaan daawadan waxaa la yidhaahdaa aspirin baa la yidhaahdaa. aspirin-kan waa 300 ml weeye oo kale. marka intaa qoro waxaa ku xiga SKU product unique ID oo ah productiga ID-giisii. haddii aad gacankii isticmaalaysa barcode reader-kii halkan baad ku aadinaysaa daawadana koodhkeeda ayaad ku aadinaysaa gacanka, kadib automatic ay koodhka u qoray. tusaale ahaan koodhkiina waa intaan oo kale, gacantana ku qori kartaa. haddii aadan koodh isticmaalaynin waxa way meeshan iyadoo bannaan baad ka tegaysaa, farahaad ka qaadaysaa. aytan barcode tape ku qoran tahay taaban sideeda u daa dhaaf. qaybtan ay ku qoran tahay unitku waa alaabtan cabirkeedii. marka alaabtan cabirkeedu waxaan ka wadaa alaabta haddaa xabad u gadaysid bis baa waxa way dooranaysaa, cabirkeedu waa bis. haddii alaabta box u gadaysid waxaad dooranaysaa box. hadba alaabta noocaad u gadaysid waad dooranaysaa. marka haddii unitku uusan kugu jirin halkan ayaa kaga soo daraysa. hadda bis baa inoogu jira. haddii aan box kusoo darayo kale waxaan leeyahay plastan waan ku dhufanayaa, kaliya waxaan qorayaa magaceedii. waxaan leeyahay waxaa la yidhaha box. short name-kan qorayaa waa b waxaa weeye I think inay tahay shortigeedu waa box oo kale. saana loo soo gaabiyaa. marka halkan waxaa ku xigta allow decimal. haddii aad alaabtan bokisyada hadhowdii aad sii kala jarjaraysid oo 0.1 ama 0.2 iyo waxaad isticmaalaysid, tusaale jeexjeexaysid boxkii baad waxaa leedahay yes decimal baa ugadin. haddaadan laakiin decimal u gadin oo tirada sideeda u gadaysid boxkii hal xaba u gadaysid nooba dhahaysid. marka waxaa laga yaabaa bokisyada inaan kala jarjarno half aan u gadno. marka decimal noo door waxaa leeyahay safe. haddaan safe gareeyo unitkii alaabtan u gadaya aspirinka waxaan u gadaya box oo kale. halkan waxaa inoogu xiga waxa la yidhaahdo brand ama waddankii daawadan aad ka soo gadatay ama daawadan lagu sameeyay. waddamadii halkan ay kugu jiraan Thailand, Turkey, UK, India, marka Egypt. marka waddanka aad rabtid unbaad dooranaysaa daawadan. haddii waddankaas kugu jirin halkan ayaad plus ka dhahaysaa. tusaalehaan halkan ayaan kaga soo daraynaa plus. daawadan tusaale ahaan Soomaaliya lagu sameeyo. Soomaaliya daawo laguma sameeyo, laakiin kaba soo qaad in Soomaaliya daawadan lagu sameeyay in waxaan dhahaynaa safe. saa ujeeda Soomaaliya inoo soo baxday. UK haddii daawadan lagu sameeyay UK baad dooranaysaa. plusna waa fahanteen. marka qaybtan ku xigta ayaan tegayaa oo ah business location-kii. business location-ku waxa weeye haddii aad leedahay laba location oo kale, pharmacy 1 iyo pharmacy 2 oo kale. haddii aad leedahay halkan ka dooranaysaa. tusaale ahaan pharmacy-geeni waa kan aan daawada maaragtay gelinaynay waa kan. haddaan daawo gudbo qaybtan ka hooseysan imaanayaa oo ah alert quantity oo maaragtay daawadan markii ay dhammaan rabto xasuusi baan leeyahay. tusaale ahaan waxaa leeyahay 5 xabo markay ka dhiman tahay daawadan xasuusi san usoo gurto. marka wuxuu ku tusayaa alert oo ah in daawadii dhammaan rabto uu kuleeyahay soo galo. qaybtan ka xigta waa product image. haddii isticmaalaysa sawiradii alaabta iyo wixii lamid halkan ayaad isu gelinaysaa. haddii kale waad ka tegaysaa. waxaan dhan waa dhaafaysaa. qaybtan u hooseysa imaanaysaa. halkan u hooseysa waxa weeye product purchase price. waxaa weeye halkii shay alaabtan intay kugu fadhida halkii box baad ku qoraysaa. tusaale halkii box $5 buu ugu fadhiyaa. waxyaabahan dhan waa dhaafaysaa. geeskan ayaad imaanaysaa u shishaysa. waxaad gelinaysaa halkii box inta aad siinaysa. waxa weeye $9 baan siinaya halkii box. saa ujeedid halkan waxaan kaga soo saarayaa inta aad ka faa'iidayso waa 80%. dan waxaad dhahaysaa save and add open stack baad leedahay. markaad leedahay save and add open stack wuxuu kuu soo saarayaa daawadan tirada kaaga taalo kuu soo saaraya halkan. tusaale ahaan cafwan 500 xaba iga taalla baad leedahay, 500 box. saa ujeedid qiimaheedii balka kuu gelinaya. xabadii waa $5 ku fadhida. marka halkan ku xigta waxa weeye waxaad gelinaysaa expire date-ka daawadan waqtiga dhacaysa. tusaale ahaan sanadka beli halkan ka dooranaysaa kale December oo kale.
December markaan dhaho oo kale weli 21 baan joogaa maanta sanadkii hore dan geeskan tago oo geenaya 2022 marka 23 sano oo tago waxaan tagay December haddana geeskan ayaan ku dhufanaya oo keenaya 2023 marka 23 waxaan leeyahay bisha August waan rabaa koodeeda daawada waqtigaas ayay waxa way dhacaysaa marka sidaas ayaan u soo galiyay save ayaan dhahay daawadan aspirin 300 ml sidaas ayay noogu soo gashay marka aan soo gelinay daawadii waxayna keenay khaanadii inventory-ga ama alaabta ku taalaadka arkaysay marka qaabkan ay alaabta kugu soo baxaysaa waa laba qaabkan all products iyo qaabkan ay ku qoran tahay stock report haddii aan tagno oo kale isaga waxba kama bedeli karto reportka arki kartaa laakiin qaybtan waa khaanadii product ku yaaleen aadna wax ka bedeli kartay tusaalahaan haddii aan rabo daawooyinkayga mid ka mid ah click baan siinay action baan ku dhufanayaa edit baan dhahayaa waxaan ka bedelaya haddii aan rabo inaan fiiriyana view baan dhahayaa iyo wixii lamid haddii aan delete garaynaya halkan ayaan ku dhufanayaa haddii aan rabo daawada product historygeedii macnaha taariikhda ay soo martay inta wax laga iibiyey iyo inta la soo iibiyeyba halkan ayaan ku dhufanayaa intaba marka waan arki doonaa mid walba waxaan ku hormaraynaa intaynan maaragtay gelin productiga maaragtay qaybihiisa waxaan ku hormaraynaa locationka halkan saa ujeeda filterkii weeye oo la kala dordooran waxaa leeyahay locationka aan daawooyinka ka rabo inaan fiiriyo tusaalahaan pharmacy 1 oo kale inta daawo ii taala inaan fiiriyaan rabo waxaan imaanayaa locationkii kadibna aan dooranaya pharmacy 1 markaan doorto pharmacy 1 daawooyinka yaalay buu iisoo taxayaa simple marka daawooyinkaana raba mid ka mid inaan waxa weeye aan ka bedelo action baan leeyahay kadib edit baan dhahayaa haddii aan ka bedelayo haddii aan fiirinayo view baan dhahayaa saa ujeedid daawadii buu isoo saaraya haddii aan delete garaynin delete baan dhahayaa marka haddii daawadan alaab tiro aan helo cusub oo maaragtay aan soo qaato oo kale 50 xabo oo kale halkan ayaan kaga darayaa barjesna maahan daawadaas 50 xabo oo waan soo qaatay markaan ayaan ku qorayaa 250 baan ka dhigayaa saas ay igu soo galaysaa daawadii okay ama waxa weeye inta action dhaho aan add open stack dhaho waxaan halkan ka dhahayaa plus haddaan dhaho wuxuu ku leeyahay tiradii cusbeed gasho ku leeyahay halkan waa hal daawo laakiin laba waxa weeye laba qaybood ay ka kooban tahay actionku waa intaas haddii aan rabo ka waran inaan fiiriyo product history productigan dultayga action baan dhahayaa kadib product history baan dhahayaa wuxuu isoo saarayaa productigan inta jeer wax laga iibiyey inta wax uu sameeyey iyo intaba saa ujeedid kan productigan waxba kuma jiraan waa faaruq cafan locationkiisa aan tegaynaa saa ujeedid waxa weye markii ugu horreysay 200 xabo ahaa 50 xabaan gadnay kadibna 5 xabaan sii gadnay hadda waxaa noo yaala 145 xabo saa ujeedid waana daawacan kartaa haddii aad u baahan tahay printigii marka waxay nagu celisaa product listigeeni locationkeeni inoo door oo ah farmashigii sidoo kale daawooyinka waxaad ku raadin kartaa wadan tusaalahaan UK oo kale waxaad fiirin kartaa daawooyinka laga haya oo kale intaas daawo UK laga haya iyo wadamada kale saa ujeedid waxa weeye qaybtan waa qaybtii productiga ay kugu jireen isla halkan adoo jooga waxaad arki kartaa daawo kasta barjeska lasoo siiyey inta la siinayo iyo inta xabee kaaga yaala 100 xaba ayaga yaala daawadan oo kale iyo wadanka daawadan samaysay hadda intaa uga baxo qaybta all product waxaan tagayaa product stack meel la yidhaahdo oo ah khaanadii aad ka fiirinaysay inventory-ga reportkiisa saa ujeedid daawooyinku dhan halkan ayay kugu jiraan marka simply waxa weeye daawo kasta ku tusayaa inta kugu fadhido tusaale ahaan current stack waxa weeye waxa ku yaala 900 xabo qiimo ahaan waxay kugu fadhidaa macnaha lagaa siiyey waa $450 totalka dhan kuu sheegaya markaan iibino waxay noqonaysaa $810 profit waxay noo saaran $360 marka haddii aan rabo waxaan dhahayaa printing qaabkaas ayayna inoogu soo baxaysaa intaas haddii aan uga baxo magaranaysaa stack reportka waxaan isku dayayaa qaybaha kale inaan soo koobo tusaale ahaan haddii aan unit ku fiirinayo oo kale alaabta unit waa kan category haddaan ku fiiriyo kala marka
guud ahaan videogan intaas ayaan kusoo okeysiinaynaa. haddii ay jiraan waxyaabo aad fahmi weydeen insha allah waad soo weydiin kartaan.